Waxa aan noolnahay casri tiknoolajiyadda ay la cararayso nolosheena. Maanta oo dhan aan ku foorarno moobilka, isaga daba meeraysano baraha kala duwan ee social media-ha. Waqtigiina intiisa badan halkaa ayuu ku baxaa. Haddiina la weydiiyo waxa aan ka faa'iidnay, wax jawaab ah uma hayno. Maqni jooga ayaan noqonnay. Waxaana ka cabsannaa in nafteena aan la keli noqonno. Waxaan ka baqaynaa su'aalaha aan kala joogsiga lahayn ee nagu soo furayso nafta, sida in waqti ay ku heshay qof ay fursad ku raadinaysay. Waxba ma focus garayn karno. Waqtigii ciriiri ayuu nagu noqday. Waxaan ku mashquulsanahay waxaanan arkaynin. Waxaan u daalannahay si maskaxiyan iyo si jireed, xitaa haddii aanan waxba qabanin. Sariirta ayaan iska dul saaraanahay. Hadafyo badan oo niyaddeena ku weyn waxaan la gaari weynay. Isticmaalka badan ee baraha kala duwan ee bulshada. Haddii aan wax yar fiiris dhaanu wuu nala tagaa. Ilaa aan aragno innagoo ku foorara saacado badan moobilka. Innagoo aanan ku talagelin. Markaasaan xanaaqnaa. Laakiin waa xindaabka maalinlaha aynu ku noolnahay. Ka waran haddii aan ku dhow waxaa noo hayaa xal, aniga iyo adigaba. Ma u adkaysan kartaa xanuunka iyo baabi'inta, la qabsiga isticmaalka moobilka iyo baraha bulshada? Ma qaadanaa nasiino, kadib ma soo laabannaa innagoo qof kale, dadka nagu hareeraysan ay la yaabi doonaan. Ku soo dhowow challenge 3 bilood oo naftaada la gelayso. Waxaana keliya samayn doonaa waxa danta noogu jirta. Waxaan iska dhaafi doonaa isticmaalka badan ee baraha bulshada. Waxaan degsan doonaa hadafyo aan rabno 3 bilood inaan xaqiijinno. Hadafyadana macquul ay yihiin. Waxaan baran doonaa xirfado nolosheena qaabeyn doona, saameyn dhaqaalena ku yeelan doona. Haddaba, waxaan filayaa in diyaar u tahay. Isku soo laabasho wacan. Waxaan ahay Maxamed Buhari. Muuqaalka la garee si dad badan u gaaro na caawiyo. Haddii weli nagu soo biirin, subscribe dheh. Wax badan ayaad naga faa'iidi doontaa. Qodobka koowaad aan samaynayno waxa ay tahay inaan ka dalidgarayno ababka kala duwan ee social media moobilka noogu jira. Waxaad kaliya ku soo reebataa WhatsApp oo aad kala xiriirayso qaraabada ama waalidiintaada. Sidoo kale YouTube ka hadalidgaraynin wuxuu kaa anfici doonaa inaad wax ka baratid ama aad wax ka dhegaysatid. Degso hadaf aad rabtid inaad gaarto 3 bilood oo macquul ah. Sida inaad baratid xirfad kadibna aad ku noqotid professional, inaad wax akhriska isbartid, ama waxa kale aad baranaysid in diiradda aad saarto, kadibna aad noqotid qofka ugu fiican galaaskaaga ama waxa aad dhiganayso. Kaliya 3 bilood waa in diiradda aad saartaa waxaan aad rabtid inaad ka meel gaartid. Qodobka 3aad, jadwal maalinle ah sameyso waa ku dhaqantid. Jadwalkani waxa uu kaa caawinayaa in si fudud kugu hirgalo waxaad maalinta qabanayso. Ha ilaawin in nasiino aad qaadatid, naftaada keli la noqotid, la sheekaysatid. Qodobka 3aad, saaxiibada xunxun ee horey u soconaynin 3 bilood iska jar. Waan ogahay waxa ay ku dhihi doonaan waad isbedeshay, laakiin waxaad ku dhahdaa, haa waan isbedelay. Waxaan gartay waxa ii danta ah, waxaan rabaa hore socod iyo inaan gaaro wax naftayda ku weyn. Qodobka 4aad, exercise daily ah samee. Subaxii aad orod samayn kartaa, ama jimkaada iska soo qori kartaa, ama socod ayaa samayn kartaa. Muhiimaddu waa inaad exercise samaysaa. Waxayna kaa caawinaysaa in caafimaadka jirkaaga uu hagaago. Waxaana la dhahaa, jirka caafimaadka qaba ayuu ku jiraa maskaxda caafimaadka qabta. Sidoo kale samaynta exercise-ka waxa ay dhisaa shakhsiyadda qofka, kalsooni badanna way keentaa. Jirkaaga qaab dhismeedkiisa ayay hagaajisaa. Waxaadna ku soo baxaysaa qof ifaya oo maasha Allah. Qodobka 5aad, si joogto ah wax u akhri. Ugu yaraan 1 bog isbar inaad akhrido maalin kasta. Waxaa kobcaya maskaxdaada, waxaadna baranaysaa wax cusub. Ogaal cusub ayaad yeelanaysaa. Akhriska nolosha aad buu muhiim ugu yahay. 5taasi qodob diyaar ma u tahay in naftaada kula challenge garaysid? Aniga waxaan ahay diyaar, waana bilaabayaa. 3 bilood kadib waxaan halkan kaaga sheekayn doonaa waxaan ka soo faa'iiday. Laakiin waxa ka sii fiican inaan isla bilowno si wadajir ah u guuleysano. Waxaan kuu soo bandhigayo aniga ayaa dareemay. Dhiibsaday sida social media uu waqtigana ula cararayo. Waxaan rabaa inaan dib isu helo, naftayda farxad geliyo. Adigana waxaan kuu rajaynayaa sidoo kale. Fadlan muuqaalka la garee haddii uu ku caawiyay. Sidoo kale waxaad la share garaysaa asxaabtada si challenge ay nagu soo biiraan.